بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى الصوماليات ميل الله لي ميشاد الدنيا دعالة إذا كتشوكتان دين وينكو سلام هيا دينة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa maanta inaan xoogaa dib u noqdo oon aado galmudug aan ila wadaagtaan waxa aan rabo inaan ka hadlo waxaa jirta xero la yidhaaho gaaska xerada gaaska waxaynu ku taallaa meel kore oo galliinsoor agteeda ah ciidanka halkaas jooga waa ciidan iskugu jira laba qabiil magac maskiin lagama ahan waxa weeyaan ciidan saleebaan iyo ciidan sacad oo tababar uu u socday oo tababarkiina hadda uu xirmay marka ciidanku go'doon weeyaan godood maa la dhahaa maaqaane ciidan godoodan weeyaan sababtoo ah waxay tahay ciidankaas lacag lama siinin muddo dheer 7 bilood ah looma tegin lama soo ogaanin siday ku nool yihiin iyo siday yihiin waxaan ognahay looma xirin xiritaanka markii oo koorasku dhammaado waxaa ah in loo tago oo lasoo xiro kooraska oo lacagtoodiina la siiyo intaasoo biloodna sababtay u lacag la'yihiin annaku ma garan karno tababarkoodii waa dhammaaday waana ciidan aad u badan oo aan rabin inaan sheegon magaca ku dhufto hadda afka waa badan yihiin 2 jifo oo reer galmudug ah ayayna ka mid yihiin waana saleebaan iyo sacad ciidamadaasu agtooda lama marin looma tegin lama weydin waxay u baahan yihiin lacag lama siinin marka ciidanku aad iyo aad bay u xanaaqsan yihiin haddaa xasuusataanna hadda ka horaan waxaan yidhi ciidamo kaleeto waxaa jiray ood xasuusataan oo joogay dhuusamareeb agteeda oo saas oo kaleeta daraawiishtii iyo wixii isku tala jiray oo aad ogeedeen oo maaragtay ayakoo 7 bilood shilin aan la siinin inay baxaan damceen oo ninka la leeyahay qoorqoor oo u dhigay shirqool uu yidhi ha laga takhalluso ay ahaayeen hal jufa keliya ciidan sacad ay ahaayeen oo markii loo dhigtay isbaarihii la yidhi ciidankii dowladda oo isku dhigahayay inay qatar cadan yihiin damcay dhabarka inay ka jebiyaan in beesha ayakaa dhabarka laga jebiyey marka hadda dhibaatadii jirta waxay tahay ciidankan meeshaas jooga dulloodkaas gallinsoor ciidankaas inaynan godoon noqdeen inaan loo tegin tababarkoodii waa dhammaaday in tababarka loo soo xiray ahayd wax laga xanaaqana way tahay aad iyo aad bay u tahay lacag lama siiyo lagama warhayo looma tegin lama dhihin kooriska waana dhammaaday midaan inii sheegayo in kusoo celcelinayo marka dhibaatada intaas la eg yaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya qoorqoor sababtoo ah waxaan ka hadlaynay ciidan hore haddaad xasuusataan ciidankii hore nootaan hadda ka sheekeynahayay marka wax la qaadan kara ma ahan maalin kasta galmudug inay godoon noqdaan ciidankoodii oo lacag la-aan la dhigo marka maxaa dhacay canshuurta yaa laga qaadaa qolda galmudug sama waay ciidanka lacagtooda loo siin waayo lama yaqaano dowladdu lacag bay soo dirtaa qaramada midoobay transit ay kusoo marto oo waxaa jirta lacagay iska leeyihiin ciidanka soomaaliyeed oo loogu talagalay ciidanka soomaaliyeed lacagtoodii qondadoodii la qorqoraa loo dhibaayay xagguu geeya lacagta mideeda kale canshuurahan laga qaadayo dhuusamareeb iyo guraceel iyo cadaade iyo xaggee aadaynay ka baxeen waa tan hadda tan gaalkacyo loo socday marka annagu waxaan weydiinay canshuurahaas intaas uu joogay hal ciidana lacag nooma siinine lacagta xaggee ka baxday lama ogo ciidankii lama tixgelinayo inta loo tago sharaf laguma soo dhammaynayo lama dhahayo kooriskiina waa dhammaysateen already waa dhammaaday koorasku marka waxaan rabaa inaan u sheego madaxweynaha galmudug yuu madaxweyne u yahay hadduunan ogeyn dadka uu mas-uuliyaddooda qaaday oo meesha kursigoodii uu ku fadhiyo hadduuna wax tari karin axmed ducaale geelle ilaa matantaan la qabsanay waad ogeed qorqor waa lagaaga fujiyey wuu ku siiyey ciidamada asaa jeebkiisa ka masruufaya maxaa kuu diida lacag waad haysataa lacag la-aan matiido ile farmaajo waa ku siiye lacagtii sababtaana ciidamada galmudug lacag la-aantu markasta ugu dhacayso maxay tahay waay dhibaatadaana ay ugu socotaa sool annaka reer galmudug noo taabanaysaa aadaan uga xumahay taas marka waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed la wadaago ciidamadaasu inay yihiin sacad iyo saleebaan waqtigoodii iyo kooriskoodiina uu dhammaaday waxayna hadda iska dhigeen ee madaxa gashadeen ciidamadii inaanba loo baahnaynba oon la rabin
ayay ciidamadii aaminsan yihiin waana wax laga xumaado aad iyo aad boqolkiiba boqol waana wax xun oo usoo hoyatay waddanka galmudug waana waxaan aad uga naxay runtii inaan ciidamada la qadarinin markii ciidamada dariiska wata waxyaalo badan waa kuwa aad rabta inaad iskaga babac dhigto al-shabaab waa kuwa aad rabta inaad dagaallo ku gasho ood kusoo xoraysato meelo waxaa loo baahan yahay walaal hadda ciidamadii aad soo celiseen maxaad ku tiri waxaad ku tiri ciidan beeleed ma tihiin ciidamo dowladeed aad tihiin ciidan baa tihiin mushaarkiina qaadataan lacagtiinaad qaadataan waa inaad hadalkayga maqashaan hadalkaada see loo maqlaaya kuwii kaloo korosku dhammaadaba ma aadan u tegin meeshay ku kabala'yiin ku dharla'yiin koros ay intaas ku jireen yaa qabiilooyinka halkaas dad baa dhale qaar baa xaasas ka tegay qaar baa hooyooyinkooda maybe iska tacbaana rabay inay $50 u tuuraan oona mushaharna la siinin inta ay koroska ku jireen oo dhan ulajeedadu maxay tahay ma aada wanaajino uma aada tegin oo koroskiina uma aada soo xirin marka maalin kasta waa inaan ka sheekaynaa dhibaatada ciidanka galmudug ay qabaan waana waxaan la qaadan karin marka qorqor ciidanka kaliya maahan sidiisu problem wuxuu ugu hayaa galmudug nimanka wasiiradaha oo la shaqeeya asaga wasaaradaha wuxuu ka dhaadhiciyey inuu sheer boqolkiiba boqol ay ka qaadan doonaan khayraadka maaragta hobyo ay isku diyaarinayaan kulligoodba bal fiiriya waa khayraad dhul ku jira dhagaxii dadka waa lagula dhagahayaa wax kasta waa lagu qabsanayaa haddana looma ogolo ciidankii iyo shacabkiiba in wax la saro oo aaminkoodana la ilaaliyo waad aragteen ayaan dhoweyta gabar gurceel baadiyaheeda gabar 5 jir inta lagu xoogay ayay gabadhiina dhimatay cadaalad muu sameeyey gabadha ninka ma soo qabto ma la toogtay ila waddankan ninka nin dila ama cunug yar oo saas oo kale oo loo fuulo dhimatay ma oday weyn bay iska celin kartaa 5 jir marka waxaan ku leeyahay madaxweyne qoorqoor waxaan ogahay inaad ka wadid galmudug abaabul maxamed cabdulaahi farmaajo uu leeyahay waana waxaan kaaga soconaynin waddanka galmudug madaxweynaha tahay xalay 3 diyaaradood soo degtay cabid waaq hub bay wadeen ma ka war haysaa axmed macalin fiqi ma ka war haya adigu ma ka war haysaa hubabkan la soo gurahayo caabud waa lagu soo dagaalahayo waa dagaal aan u jeedno inuu farmaajo waddanka Soomaaliya uu ka saaro maxaad u haysaa cidii habar gidir maxaad u haysaa dadka dariska kula ah oo kula dega dirta ka soo qaad shiiqaal ku xiji ma dhibaan ku xiji qolo kasta inta kula degto dhan maxaad u haysaa ila cidii ma reexan hubabkii laga keenahay dhulalka indhayarta oo muqdisho iyo dekedeeda laga soo dejiyay waa ta lagu daad garaynaya caabud waa qiyo gado maxaad u haysaa xali 3 diyaaradood soo degatay madaxweynaha galmudug aad tahay kama waraysid ankee mise adigu waxaad ka waraysaa midda dhuusan bareeb ka soo degata kaliya haddaba caabud waa xali 3 diyaaradood ka soo degto hub kaliya wada oo loogu talagalay in habar gidir lagu muquuniyo ya qabiil kasta oo ka qaatay dawladii la riday marka haddaad is leedahay farmaajo soo celinaysaan ana hadda kuu sheegahay farmaajo soo noqon maayo muqdisho waxa laga dhigayaa gobolada la mid ah hadda jira oo federaalka dastuurkana waa ku qoran tahay farmaajo iyo xukuumaya farmaajo wuxuu isku dayayaa nin hawiya inuu keeno golaha baarlamaanka waa laga diiday waana ogyahay waana waxaan soconayn wadanku waa federaal tartana loo galayaa kursiga soo socdana nin hawiya iskale hadday sheekadu isbedesho la yiraaho maanta annaka waxaan la yiraahdaa hebel annaka maanta hubna waa haysanaa hawiyana marayna buriyeenayna jabiyeen maanta waa noo bisilyiin oo waxaan u tagnay cid yaanyada ka liidata markaan gobolka banaadir tagnay markaan goboladooda ku soo wareegnay markaan bay iyo bakool soo aragnay waaba dad iska wada jilicsan dadkaan hawiyahan iyo reexamarkaan iyo gaal jecelkaan iyo ma aragtay raxweyntaan iyo marka waxaan rabnaa inaan ku tumanno oo waddanka iyo dawladnimadana gacanta ku dhigno sidii ay rabaayad laga dhigana hawiye aan rabaayad ka dhigno dad baa dareen maskaxdooda uga jirtaa laakiin ma noqonayso inta aad qodan tahay 10keeda la qodan yahay taasaan rabaa inaan kuu sheego inta aad qodan tihiin 10keed ayaa la qodan yahay wax soconayana ma ahan waa waxaan ka soo horjeedno farmaajona Soomaaliya madaxweyne kuma noqonaa inuu tuug yahay waxaad ku ogaanaysaa 4 years oo dabayaqaha ay 2 bilood ka hartay ayaa waxa laga weynay war soo xisaabtan wuxuu u maleeyaa dhaqaalaha waddanka markuu la dhinto waddanka dagaal uu ka kiciyo bal reesadooy yaa way dadka dilaysaan ila mareexan kulama qabaan ila reer ayeyday kulama qabaan caldeer kulama qabe yaa way dadka alla dagaalamaysaan ya reexmed kulama qabaan yaa way dadka alla dagaalamaysaan waa la iska kiin celinayaa ogaadeen ilaahayba tirama ku siin mana la tiro koobi karo annagu waxaan ognahay maantay al-shabaabka jooga Soomaaliya oo muqdisho qarxiyay oo hawiye raaxada habeen iyo maalin ka qaado qarxiska kala ka darnaa inay niman mareexaana oo reesada ay yihiin wajigana noo duubto al-shabaab iska ka ay dhiga maalintiina ciidamada iyo dawladda ku dhex jira inaad tihiin waa lala socdaa kulli waa target garaysantiin waa la wada ogyahay
annaka al-shabaab inuuna waxba nagu samaynin oo dad islaamiyad oo masaakiin oo xarka cunaya una bamba u dhigaynin waa ognahay laakiin nimankiisada oo mareexan oo yiri xiniyaan leenahay waa arkaynaa meesha lagu kala baxo Soomaaliya ina maalintii habeenkiina al-shabaab tihiin maalintiina dad shibila aad tihiin waan ognahay waana inala soconnaa marka diyaari iniin haddaad istirahawiya waa bisilyo waa mashadoonya wallaahi bilaahi tallaahi una bislana wi aqoonaa kuugu dhiman gobolka banaadirna waa la dhisahayaa farmaajo ayuu xukumayaa farmaajo waa inuu soo xisaabtamaa waa qaa'inul wadan waana tuug wuxuu isiri nin kristana tahayo ma aragtay oo ma aragtay waa lagaa celinahayaa dadka orthodox waa lagaa celinahayaa dadka orthodox waxay yimaadaan Soomaaliya naga kaa celiyaan haddaan horey u ogaan lahayn yaa horta ku dooran lahaa digaagadda xaartaad ka liidatay maantana qaa'inul wadan baa tahay tuuggii ugu weynaa oo Soomaaliya goor lagaa matajiba farmaajo waa lagaa matajinaya taas ogow hawiye bisil oo lagu socon karana oo qaraxyo lagu dhamayn karana meesha ma joogaan hawiye waa kaa aqal dheeriya gediga Soomaaliya meel ayna ka joogin male ilaa waxaan degnaa wadanka NFD ilaa Ethiopia degnaa waan iskaga aadnaanki Ethiopia adoo kale ma niin annagu Kenya shaabarshatay Kenya kuma soo bursan marka aan ku soo noqdo galmudug waxaan leeyahay Mr. Qorqor waxa weeyaan dhaqaalaha wadanka militariga ciidamadooda waa lagu siiyaa dhaqaalihii meel ay aadeen adaa ka hadlaya wasiirada aad ka ballan qaaday inaad shirkad batroolka hobyo ka siinaysidna waa riyo maalmeed aad u fadhido oo aad ku qarweysid weeyaan barkee amnigii lagaa rabay badhuusan mareebka ma aada samaynin maantay waad aragtay dhaqaale daran uga cararhayaayo gaalkacyaan u cararhayaayo waxaan rabaa taas waxa kaleeto oo aad jira kuraasta sacad ayaad ku xisaabtantaa kuraasta sacad faraha ka qaad anagu waan ognahay ragga hebel iyo hebel iyo hebel aan dhihi karnaa afkeenna ma rabna inaan ku sheegno caada qaadatada sacad ku jirtana waa iska qabanaynaa oo waa raggeenni laakiin gacan adagaan ku qabanaynaa maantay odayaasha halalacaana waxaan rabnaa inay doorashooyinka bannaanka ka istaagaan oo wiilasha 30 jirada oo digriga wata iyo 28 jirada inay noo soo saaraan xildhibaan baarlamaan oo miiska garaaci kara ma aan oday dhahayo garabka la iga qaado hintisahayo ama gurguuranayo walaal annagu ma rabno marka odayaashiinaan madhargayaasha waa waxa dhibaatada sacad u keeno dhan adinkaa kowka ah fidnada sacadna adinkaa kowka ah adinkaana sacad isku wada diraya anu cidda sacad waxaan leeyahay dhasha Cabdalaahi Cawareere odayaasha la iska qabto dhalinyarada hala siiyo xildhibaannimada oday yaana hal xabba loogu reebin gaalkacyo may maqlaysaan gaalkacyo waadinka waxaan la hadlahayo hal oday yaana hal loogu reebin wuxuu dhiganayaa dhigto wixii laga cuni karana laga cuno lacag waa qaadasho lacagta uu ku faanahayo odaygu dejiya hadhowna shankuula dabada uga dhufta anu taasaa in leeyahay annaka fiiri intaasay xildhibaan soo ahaayeen qof isbitaal la geeyo lasoo daaweeyey cidda sacada ma aragno ilma agoona oo waxbarasho laga bixiyey cidda sacada ma aragno ceel sacad loo qoday annaku ma aragno marka dadka xildhibaanada raadsanaya xariga iyo freenka loo dheereeyo ma fahanteen kii galmudug madaxweynaha ka ahaa oo adeerkay ahaana oo habargidir ahaana waa kanaayo ciidamadii intay kooraska u soo dhamaadeen ay joogaan ay una taano la siinin oo ay og tihiin inaynan iska hadal geedu ahayn ay joogaan xerada xerada gaaska la dhahaa xerada gaaska anu saasaan u fahmay xerada gaaskay joogaan looma tegin marka maxay u qaadanayaan ciidamadii kooraska inta loo soo xiray loo tegin wax fiican loo sheegin la qiimaynin hadiyad la siinin lacagtoodii oo dhan aan la wada siinayn we know inaan lacag la siinayn hadday u bataan 200 loo tuuraayo waa hadday noqotaba haddii kale jeebka qorqor shilinka galaa kama soo baxo waa saas qorqor waa dadka gacanta adag geedda waa ku adag yahay may fahanteen dhaqaalihiinni asaa jeebabka ku guranaya inuu dollar soo saarana ma ogolo soo tuuro marka waa ka xumahay ciidamadaas ciidamaadkiin wadankan waxba iska bedelahaya maybe ninkan iska dhaadhiciyo qorqor iyo ragga ag jooga iyo dadka ma aragtay waxaynahaya in shirkadii batroolka ayaa 100% ka helaysaan ay ku wada han weeyeen oo ku wada dheer yihiin qurba joog oo dhan baa la socota wasiirada isi siiyay 100% inay kheyraadka farmaajo ka dhaadhiciyo asna ka sii dhaadhiciyo wasiirada reer galmudug walaal waa riyoonaysaan leeyahay ee riyada ka kaca wadanka hadaad wax u qabanaysaan u qabta nin aad ka hooyo fiicantiin oo aad ka nasab fiicantiin ma jirto kheyraadku wuxuu ka dhaxeeyaa waa galmudug wuxuu ka dhaxeeyaa waa Soomaali weyn waxa uu taagan hawiye marka waxa leeyahay hungurigan dheer aad isi siiseen oo aad ka soo dhawaysateen habargidir oo aad leedihiin maye bal annagu inteenan aan share ka helno annagu hebel baan dhigi karnaa hebel aan dhigi karnaa qorqor we know everything mideeda kale waxaan ka ilaalinayaa qorqor oo aan ku leeyahay digtoonow ka aho kuraasta sacad oo aad ku loolmaysid oo inaad ka qaado oo qabiil kale aad siisa aad rabto be careful ka aho wala soconnaa qurba joogtaasna marka halkaan waxaan rabaa salaana uga diro Axmed Macalin Fiqi oo xagga ciidanka walaalkay macaano adaa masuulka ah
laakiin dhaqaalaha waa inaad ka qaadaa madaxweynaha galmudug markii asaa jeebka ku shubtay ilaa adiga ay ahayd in dhaqaalaha ciidanka galmudug in adiga lacagtooda faraha lagu soo geliyo adigay ahayd may fahanti marka hadda in loo tago ciidamadan oo duleelka maaragtay gaaska jooga oo kooriskiina u dhammaaday in kooriskooda loo soo xiro marka anigu taasaan leeyahay axmed macalin fiqi ciidamadaas loo tago ciidamada waa go'doonsan yihiin weliba waxay ku dhaarteen inay soo baxayaan ay shoob barana ka bilaabayaan xarunta madaxtooyada dhusamareeb marka dadkii oo la nacay dadkii oo laga warhaynin dadkii oo waxba laga ogeyn waana wax laga dhinto taasu waxaana leeyahay sheekadan galmudug kama socoto barkee haddii madaxweyne qoorqoor oo wax la socon lahaa xalay 3 diyaaradood ayaa kasoo degta caabudwa oo hub culus wada marka mashirqoolka wuxuu ku wadaa habar gidir in la baabi'iyo dabka korkeeda la saaro ka bacdina la cuno soo ku ogaan waayo madaxweynihi annaka qurba jooga aan ku ognahay hubabka habeen kasta ka deganaya ma aragtay caabudwa seeko bis caabudwa gacanta kuuguma jirta adiga ma farmaajo maamula sheek no sheek ninka adiga kugu xiga kursiga ka tuur lalmi maxay tahay hubka laga soo dejinay yaa la rabaa in lagu dilo hubka ma waxa la rabaa in lagu weeraro shiiqaashi iyo habar gidirtii iyo ma aragtay dirtii iyo dadkii war be careful ahaada hubabkiinana banaanka soo dhigta ciidamadan ninka xumaayo xijaar la dhahayay oo meyd qariyo ahaay intuu yimid dhusamareeb iska dhigaysid nin maaliyadii lacagta ciidanka inuu fiirinayo kale iska dhigay waa ninka bandiiradley ka dhacay oo futada haraati looga soo dhuftay bandiiradley gaalkacyana wuuf lagu afuufay oo laga tuuray ilaa uu dhinaca waqooyi oo Puntland oo galay maxuu yimid mataqaana hubka sacad meesha uu yaalo soo ogo waa la yiri ku soo wareeg dhulkay degaan raalliya uga noqday qorqora raalli uga noqday weligeed lama ogaan doono hana u malayn hubka sacad soo wareejiya maalintaad sacad oo hubkaada wareejiso ninka la rabo dhaxalkiisa in la cuno oo la tirtiro waa adiga cidda sacada midna waa inii ka digahayaa weligin tira koob hayeelinina Soomaaliya ina jaamaca ka ahayn waa kow sikin waxay inii sheegayaa kuraasta cidda sacadu ay leedahay maalin kasto shalay waa dhiibayna markuu Axmed Ducaali joogay iyo dawladihii ka horreeyay maanta waxa la keenay kuraastii sacad in lagu loolamo la qaato markii boosaskii xilalkii ugu fiicnaa galmudug oo wasiiradii laga wada qaato soola Axmed macallin fiqi laga dhigay wasiirkii ciidanka wasiiradii kale oo dhanna lala tagay meelihii dhaqaalaha laha laga wada qaatay ayaa maanta wax qorqor intaas sacadka ugu talagalay xin oo u qaba cidda sacad xeelihii dhaqaaladoo dhan intuu ka ilaaliyay ayuu maantana wuxuu yidhi waxaan tegahayaa gaalkacyo waxaan rabaa inaan soo qaado lacagta canshuurta gaalkacyo halkaas aan 6 bilood soo fadhiyo ku soo baylalo uu yidhi iska ilaaliya ilihii dhaqaaladoo dhan uu la wareegay wasiiradii oo dhan aan nala ka qadiyey mihiinadii bosashinadoo dhan aan nala ka qadiyey meel cidla iyo hawo cidla ayaa noola wada tilmaamay dhaqaalaha waddanka soo gala mudug waa laga qaatay marka anigu waxaan leeyahay be careful hal yiraaho odayaasha halaala caano oo raba xildhibaanada oo aragnay facebookyada walaalayaal ka fadhiista ummadda nabi maxamed dhalinyarada digriga haysato sacad oo 30 jirada ayaan u baahannahay inay miiska baarlamaanka xildhibaanka ay noo galaan annaga uma baahnin oday garab la qabanayo uma baahnin oday garabka lagu sido uma baahnin annaga dhaqaale waa haysataan iimaan intaad isku yeeshaan oo candhuuftiina dib u laqdaan oo ilaahay aad ka cabsataan u banneeya dhalinyarada sacad ha galaan meesha taada ayadoona raalli lagaaga eena intaad ka dhimato algu tumana waliba lagu falaada ee u banneeya dhalinyarada anigu taasaan leeyahay waxaan leeyahay cidda sacadna be careful dagaalada soo socda oo la qarinayo ciidamada sacadna waxaan leeyahay meel kastoo joogtaan ka soo dhaqaaqa waa inaad iskugu timaadaan mudug haddaa dhaqaale u baahataan qof baa mas-uul inka ah axmed macallin fiqiha soo hadlo lacagta waa la aruurinayaa waan la soo dirahayaa laakiin alaabaha laga soo dejiye caabudwa waxaa loogu talagalay habar gidir in laga takhalluso weliba cidda sacad farmaajo inuu ku tuntuu rabaa mideeda kale ra'iisul wasaarahan dad maafiya oo dhiigi cabah oo tuugaan la kulmay oo ku soo dhaxdhacay wiilkan sacad ilaa dawladii cabdullaahi yuusuf cabdullaahi ciise ilaa dawladda caydiid ilaa maanta ayaa cidda sacad matantaha looga wada dhagan yahay wax loo ogoleen malaba horumarayso inta la isku dhagan yahay madantooyinka oo la iska lalmado maanta haddii la keenay ra'iisul wasaarahan 3 bilood joogahaya oon cay lahayn oon ceeb lahayn oo aanan aqoon dabeecadiisa oo aanan aqoon sidoo yahay salfadiisa oon ognahay inuu dawlad qashin quba oo dhiiqa oo tuuga oo dhigicaba oo ku soo dhaxdhacay oo asagaba tiisa ku haysato waa lacayna markii la yiraahdo wallahi billahi anan yeeleen idhiga in leeyahay ilaa cabdullaahi ciisaan matantaha iyo faraqa iga dhaganeedeen iyo intii generaal ciidiida waryaada nadhigaan leeyahay nadhiga haddaan sacadnahay tuugaa tihiin sacad tuugaa weli lama sheegin nadhiga tuugooyinyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hala furta gambaleelka youtube-ka
si aad iila socoto marka aan soo galo uu soo dhacayo waanayni salaamay I love you qiyaamada uu farmaajo u wadana iska ilaaliya uu mucaaradka lagu hajaray qorqor wax sharaf leh oo wacan ma wado anaa ini dhahaya jeebabkiisu u fadhiya oo hoosta ka dalwalo oo aan buuxsamaynin ilaa maalintuu yimid oo lacag guray wixii xaaf alla siin isaga waa la siiyey muxuu siin waaya ciidanka lacagtooda والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله في وإن شاء الله يتسعدك